سيتنا والله وصول وياه جولان فربضن مقالة دامستاد oo kaalin fiican ka galeen oo champions jarmalka dhammaday meeshaan hadda waxaan ugu imaanay oo waxaan iskugu imaanay intaa dhiirigelinay dhalinyarada aan u mahadcelina howlkarkooda dadaalkooda iyo wax walba ee la kulmeen intay guushaas ka gaarayeen waxaana halkan ugu mahadcelinayaa magaalada koobkaas qabatay magaalada Essen oo gaariyada xagga ka dhisan ay qabatay kooxda afartu u soo baxday meeshaas ay finaalka lagu qabtay oo si fiican u soo agaasimeen aadana meeshan ugu mahadcelinayaa mid kale tan waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay oo meeshaan soo gaarsiisay ilaa iyo koobkaaniita oo si fiican ugu dhaca oo ka mid yahay Daawud Amoore aad iyo aad ugu mahadsan yahay maantana noogu soo safray Berlin ilaa inta oo 600 kiiloomitir xalay taasoo shaqo ka soo baxay soo safray aad iyo aad ugu mahadsantahay Amoore 100% maantana koobkan waxaana la jooga xafladan sharafta leh waxaana la jooga dalada guud ururada Soomaaliyeed oo la asaasay gudoomiyaheeda injineer Xasan asagana meel dheer noogu imaaday aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan kulleyba hadda wax badan waa la soo dhahay intaan wax badan sii dhahna marabi kulleyba Somali Community Service IFAW waa urur dhalinyaradana mar walba garab istaagan oo dhalinyaro abaabushay oo wax walba intay la qabtaan rabaan dhalinyarada magaalada Darmstadt iyo nawaaxigeeda degan waxaana halkan ugu hambalyeynaya gudoomiyaha oo dhinaca sportiska oo Somali Community Service IFAW Abdiqani iyo tababaraha Saciid iyo dhalinyarada kulli oo banooniga soo ciyaareen aad iyo aad ugu mahadsan yihiin iyo kabtankooda Maxamed Gaab oo aad iyo aad u garanaysa asagana Maxamed Abdirasaaq aad iyo aad asagana dhalinyarada u dhiirigelinayay iyo odayaasha magaalada Darmstadt aad iyo aad ugu mahadsan yihiin macmacaan kala meesha ku cuneynana waxaa soo sameeyay dumarkeena khayr Allah siiya ayuu guriga joogaan haddana inta la joogaan intaas ay tahay mahadcelina waxaana mikrafoon ku soo dhaweynaya oo maanta sharaf ii gudoomiyaha dalada guud Xasan Buraale injineer Xasan kusoo dhawaad sharaf inta mikrafoon ku soo dhaweeyo aloo magaalada Darmstadt guddi kusoo dhawaad gudoomiye Xasan السلام عليكم أمان maanta waa maalin aad u sharaf badan maalin aad u weyn waxaa halkan koob ka soo qaaday mataqaanaa rag aan 5 sano tababaro ah kabtan u ahaa sida mataqaanaa kabtanka Darmstadt Maxamed Abdirasaaq iyo tababaraha Darmstadt Masar Zaciim asagana mataqaanaa tababarihiina shaqada kabtan soo ahaa haddana maanta koobka Jarmalka ay soo qaadeen maanta aad ay dhiirigelinaysaa ay farxad gelinaysaa waxaan idin leeyahay mataqaanaa hambalyo waxaan idin rajaynayaa mataqaanaa midaan iyo mid ka weyn inaad qaadi doontiin hadduu Ilaahay idmo waana ku guulaysan doontiin anigu waxaan hadda mataqaan meeshan ka matalayaa dalada guud ee Soomaaliyeed anagana insha Allah taala aynu nahay waa garab istaaganahay wax walba mataqaan waa idin dhiirigelinaynaa dhalinyaradeenna oo hadda intaan kooxood iskugu imaatay oo kubadooda ciyaaraya wada faraxsan aad ay noo dhiirigelinaysaa waxaan insha Allah taala aan rajaynaynaa qof dambe inuusan maalayac inuusan naga dhiman oo amba dhibaato amba xanaaq amba mataqaan stress usan nooga dhiman waxaan rajaynaynaa dhalinyarada inta hadda joogto in ka badan inaan farxad aan gelino inta hadda wax noqotay in ka badan inaan mataqaan wax ka dhigi doono
إن شاء الله تعالى ودجير عن متقنا وحب أنكو قارنا المجال والبن حرب بين يا سيدي متقنا المجال ده ونوكل إلى نقول دون تهدو إلى هذه الملاية يقولون kubadda cagta Darmstadt aad u mahadcelinaya guusha ay soo hooyeen iyo guusha weyn ay gaareen waxaan rajeynayaa sanadka ma ay soo qaadi doonaan haddii la yidhaahdo kabtagana u mahadcelinaya maxamed cabdirasaaq iyo nagala guud oo dhan hambali aad ilaahay guusha weyn aad gaartay waxaan ku hambaliyaa Somalish Community Service oo hawshan aad ugu dadaaleen aad ugu mahadcelinaya sanad kasta inay sanadka meesha xabiib ugu bataan waxaan aad baan dhiirigelinayna aad baan ugu mahadcelinayna dhammaantiin insha Allah sanadka mar waa soo qaadi doonaa sanadada xarabo aad baan ku hambaliyaa dhalinyaro waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulan maamuusayo kooxda isboortiga Darmstadt oo soo hanatay koob ay soo abaabushay Somali News Germany oo ay taabageliyeen xafladan Somali Community Service Darmstadt iyo dukaanka Tawfiiq waxaan leeyahay hambalyo كل كوحدة تاريخ هذا لقمة هذين كوك سوق هذا كريم يعني هو هم لينا إيمان تويدل كوحدة معارض السنة وضع كل نبي تونكا تاريخ وين أيام هذا هاي كوب بدنا يكسر غير كشيء كوك وحكم إذا بوم كسر هرم سمفينا كوك وحكم إذا جيس موقف كسر هرم سمفينا عن وفر صدق كذا ciyaartooyda hore oo ka fariisatay waxa kamid ah Kamal Shibis masrax wuu ku jira garoomada iyo Maxamed Gaab Maxamed Gaab marka aad iyo aad u leedahay kooxdan taariikh oo fog bay leedahay oo ii sheeg muxuu ahaa ciyaartooyda hore oo ka daqoodaan ahanay kulli waa aragtina oo maleena ilaa haddana waxaan taaganahay garabkiina inkastoo waqtiga uu naciilay oo garoomada aan ka baxnay laakiin hambalyo mar labaad mar saddexaad insha Allah waxaan rajeynayaa kulanka dambe oo noqon doona hadduu Ilaahay ka raali noqdo jaalidaha Afrika inaan soo qaadin tan Soomaaliya ahayd tan ku xigta waa jaalidaha Afrika insha Allah waxaan rajeynayaa koobka soo qaadin wax walba noogu baahatiin oo ah maskax ama ii sheeg muxuu ahaa talin mar walba garabkiina ayaa taaganahay waa shirkad xawaalad casri ah qofku moobilkiisa oo kaga dirsan karo lacagaha waxaa bushaarahay shirkaddu hadda degan tahay magaalada Frankfurt xafiis cusub ay ka furtay oo Jarmalkeena la degan tahay waxaana caawan isaguna la jooga isaguna mid ka mid ah aasaasiyaasha shirkadda Transfer Galaxy Mustafa Ismaan waxaan halka caawada ku nimi inaan guddoonsiino abaalmarin walaalkeen Amoore oo halkan ka soo qabtay maxaa la yiraahdaa shaqaale wanaagsan koobkana de isaga la'aantii aanu hirgalay sidaad ogtihiin qofka bulshada dhexdeeda aad ku firfircoon shaqooyin noocaas oo kala qabtana haddaan dee la xusin abaalmarin la siinin lana dhiirigelinin waxba inoo kala socon maayaan طبعا عيد عاو حلقة حفلة اللوجة سبوا كوحدة كوكو كبوليس سي دامشة وأنا همبريانا نكوب كوي بنال كوي هذا لكن عندي أبنت كانوا عصا صوص بيجلسي الشيء اللي ما تنكو هذا جنب كاسو كنتي وها تيم كيو جامين يا أمورة وأنا جنب هذا علينا وأنا نريجلنا شوي كانوا عصا كلاين مر والبايس السولان مدام نقول هالشركة الصاحبة اللي يرى ضيق الشارع waxaan halkan ka soo go'aysiinay inaan qaban doono koob Jarmalka oo dhan gobol ku qaban doono gobolka heesa oo horeyn doona insha Allah aan ku dhigi doona waa Brito magaalada Beerse ee ka dhacaya kooxda koobka qaaday Darmstadt way ka mid tahay Brito hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa kooxda goboladii Jarmalka oo dhan koobkeeda soo qaaday inay gobolkiisa Brito qaado insha Allah aad aan ugu faraxsanahay oo farxadda la soo koobi karay koobkii aan soo waday muddadii 2 bilood maanta ina hortiisa aan taaganay natiijadiisii maanta iyo farxaddii iyo dabaaldegii maanta loo dabaaldegayo run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay kolley koobka wuxuu bilowday maanta ama ahaantii
ahaanteeda aan soo bilaabay waxay ahayd 4 bishii July 2020 kulankii ugu horeeyay wuxuu ka dhacay magaalada Berlin afar kooxood ayaa daafurtay maaragtay afarta kooxood waxay kala ahaayeen Berlin oo laba kooxood ah iyo Hamburg iyo Dresden iyo waxa dhici kara kooxdii kale waxay ka socotay Chemnitz marka waagaas waxay bishii July bishii 7 laba bilood ayuu koobkaas socday muddadii aan maaragtay beej aan ku soo qoray dib u raaci kartaan waxa weeye waqtigiisa ayuu ku soo dhamaaday koobku waxa weeyaan wax cilad ah oo maaragtay alxamdulillah ilaahay maaragtay noo fududeeyay intaasna waxaan isku soo barannay 480 qofood iyo ka badan oo Soomaali ah oo dhalinyaro weliba ah maaragtay aad iyo aad maaragtay u faraxsanahay runtii inta kooxood oo dareemi kartiin oo meel isugu yimaado meeshaas ay isku baranayeen koobka waxyaabaha laga dhaxlay waxaa ka mid ah in dhalinyartii ay isbarteen dhalinyaro mar hore isugu dambeysay inay goobta isku arkaan waxaa sidoo kale ka mid ahay waxyaabihii laga dhaxlay koobka maaragtay dhalintii maaragtay inay ku wada mashquuleen maaragtay koobkii iyo waxyaabo kale ay ka soo mashquuleen waxaan maaragtay aad iyo aad maaragtay ugu faraxsanahay maanta inaan koobkii aan guddoonsiin doono insha Allah hadduu leeyahay kooxda Daamish